iyo gumaadka iyo isnidaaminta way u simayeen ma jiro mid ka fudud guriga gabadha tan la keenay ma ahan xaafad dumar ma joogo lama degana waa xero military waa bar laga duulo waa meeshuu hubka iyo diyaaraddu iyo talada ay ka fursamay macnaha ma jirto sabab loo keeni karo gabadhaas guriga oo aan ahayn in ayada laftigeeda loo diyaarinayo inay isqanciso macnaha marka wax kale oo loo gabadh beledweyne ka timid oo xamar timid oo akhlaaq ku leh oo ehel ku leh oo nin xishooya qabo ma ahan inay ku soo dhigto xero military oo hubkii ku aasan yahay oo amiirkii dhex fadhiyo oo aan gabar iyo dumar iyo carruur midna aan lagu arkin in la keeno macquul maaha waxaa loo keenay gabadha tan inay kamid noqoto kuwa isqarxinaya wax kale maaha wax kale maaha kuwa kale waa kuwa hawsha fuliyay macnaha kan wuu ogaa inuu taliyihiisu yahay al-shabaab yahay wuu la fuliyay waa ragga gubaadayay macnaha labada kan oday oo dilaalinkaani waxay kasbeen fadhigii al-shabaab u noqon lahaa bayska oo ay ku duuli lahaayeen nimanka kasbay weye macnaha oo madiina kasoo koriyey weye waa nimanka wadada macnaha ma ahan way ka tageen dilaalyo waydaas in meeshaasi ummadda lagu gubaado oo lasoo fadhiisto yaa sababay labada nin baa sababtay saddex ayaa sababay macnaha ayagaa sabab u ah inay halkaasi bays al-shabaab ka sameeyaan oo ay ku soo hirtaan ka beledweyne jira iyo ka kismaayo jira inay ku soo hirtaan kuwii sababay macnaha ma ahan dilaaliin maaha gabadha tan isqarxin baa loo wey hubkan ayado inay isticmaashaan loo wada macnaha marka ma jirto wax kale oo loo keenay gabadha xaafad loo keenay maxkamadda sharaf sare mar haddaan ku kala cidna markhaatigii iyo marag muujintii iyo mid walba asagoo hubkii kor fadhiya lagu soo qabtay waxay waafaqsan yihiin shuruucda iyo aayaadka aan ku soo eedanin ayay waafaqsan yihiin waxay mudan yihiin in la waafajiyo shuruucda man laa yarxam laa yurxam midaan naxariisan ma loo naxariisto rasuulka kaa yidhi macnaha man laa yarxam laa yurxam waxaan maxaa loo sameeyey shucayb waa kan waa kan maxaa loo sameeyey waxa kan waxaa loo sameeyey in lagu gubaabo dadka soomaaliya macnaha waa marlaysay maxkamadda waxaan ugu talagalaa boorsooyinka inaan u dhiibno gabdhaha idiin shaqeeya oo ay niis loo shaqeeyaan khaa'inimada noocaasa fiiri maxkamadda sharafta leh sanayaashan dhammaan waxay u siman yihiin shuruucda iyo aayaadka ku qoran eedeena ciqaabta ka dhalaysana way u siman yihiin waxay mudan yihiin in laga jaaza mariyo dembiyadii ay ka galeen ummadda soomaaliyeed diin ahaan sharaf ahaan naf ahaan dhaqaale ahaan sumcad ahaan intaas ayay u burburiyeen ummadda soomaaliyeed maxkamadda sharafteeda waxaan ka codsanayna in ay eedaysanayaasha dhammaan waafajiso aayaadka iyo qaanuunka ku qoran eedeena oo dhigaya in kuwa kan mar hadday duubta noocaana galeen lagu xukumo laguna fuliyo dibtooda shaa wax kale ma isticmaal wabillahi tawfiiq